dugsiga hoose dhexe iyo Sare Jabuti oo kamid ah iskuuladii dhawaan dawladda Soomaaliya ay la soo wareegtay isla markaana ardayda Soomaaliyeed ay lacag la'aan wax ugu bartaan ayaa waxaa maanta booqasho ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre si uu ugu kuurgalo hanaanka waxbarashada iskuulka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhammaan fasalada uu ka kooban yahay iskuulka Jabuti mid u booqday xilligaas oo ardaydu ku jireen qaadashada casharada caadiga ah si uu dhiirigeliyo ardayda dawladda Soomaaliya ay ka bixiso dhammaan qarashaadka ku baxaya waxbarashadooda taa qaybka qorshaha xukuumadda ee horumarinta waxbarashada dalka. maamulka iskuulka ayuu ra'iisul wasaare Khayre ku xog wareystay sida ay tahay hanaanka waxbarashada iskuulka waxyaabaha u baahan yahay in lagu kordhiyo si ardayda Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aan oo leh tayo sare isagoo u qaybiyay buugaagta manhajka waxbarashada dalka ee dhawaan la hirgeliyay. wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri oo booqashada ku heliyay ra'iisul wasaaraha ayaan wax ka weydiiyay ahmiyadda ay xambaarsaneed booqashadan maanta. iskuulkan wuxuu ku jira iskuulada ugu arday badan oo wasaaradda ila soo wareegtay runaantii sharaf ay noo tahay maanta ra'iisul wasaaraha inuu arko indhihiisa ku arko tilaabooyinka ugu muhiimsanayo xukuumadda ay qaato ah la soo wareegidda iskuulada dadweynaha. taas waxay qayb ka ahayd ballanqaadka ra'iisul wasaaraha oo ahaa inuu soo celin doono adeegii bulshada oo ahayd in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ubadka Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho runtii lacag la'aan sida uu qabo dastuurka qaranka faqradiisa 3aad. runtii waxay ahayd inuu arko la kulmo ardaydii macallimiintii maamulkii inuu xog waraysto baahiyaha ka jira isla markaana uu u kurgalo xaqiiqada dhabta ee iskuulada taal. ra'iisul wasaaraha wuxuu la kulmay maamulka iyo macallimiintii iyo ardaydii waxaanu u qaybiyay maanta oo si uu gaarsiiyay buugaagtii wasaaradda waxbarashada ay daabacday intuu ra'iisul wasaaraha uu joogay. haddana waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala waxa ka dhiman iskuulkan ra'iisul wasaaraha inuu arko iyo iskuulada kale oo aan la soo wareegnay. muhiimadana waxay tahay kaliya ballanqaadkii ahaa in kaabayaasha arrimaha bulshada la soo celin doono ay qayb ka tahay oo uga mahad celinaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guud ahaan annagana ka wasaarad ahaan waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan ka codsano inay garab istaagaan iskuulada inay ayaga leeyihiin inay ogaadaan inay ka qayb qaataan horumarkiisa iyo bilicdiisa. iskuulka hoose dhexe iyo Sare Jabuti oo la aasaasay sanadkii 1976 ayaa loogu magac daray halgankii xorriyad raadinta ee walaalaha Jabuti. waxa uu ka kooban yahay 19 fasal waxaana hadda si lacag la'aan wax ugu bartaa arday gaaraya 1230 arday. barisamaadkii iskuulkani waxa uu ahaa ama uu ku koobnaa dugsiga dhexe iyadoo ay ka soo baxeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.